Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso kusoo dhawaaw Taleex Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto barnaamij walbo halkan aan kasoo daynaa. Haddii aad horey inoogu xirnayna aad ayaad ugu mahadsan tahay. Waxaanu bilaabi doonaa sheeko inoo noqon doonto tixano hadduu Alla idmo. Sheekadaas oo magaceeda la yiraahdaa Xeebtii Dahabka iyo Waayihii Saxardiid. Saxardiid wuxuu ahaa wiil yar oo agoon ah. Hooyadii iyo aabihiina isagoo aad u yar ayay dhinteen. Wax dhaxal ah, maal iyo moodba midba uu ku noolaado uguma aysan tegin. Qareen iyo qaraababa wuxuu lahaa oday abti u ah. Odaygana waxaa la oran jiray Timir. Wuxuu ahaa oday sabool ah. Magaalada ay Saxardiid iyo abtigii deganaayeen waxay ku taalay badda agteeda. Markaa Timir wuxuu ahaa kalluumaysato. Maalin walbana wuxuu ku kallihi jiray badda oo kalluunka ka soo ugaarsan jiray. Dabadeedna wuxuu geen jiray magaalada oo ku soo iibin jiray. Timir wuxuu lahaa haweeney iyo gabar yar. Waxaanu ku noolaa guri yar oo badda agteeda ah. Saxardiid qoyska abtigii ayuu la joogi jiray. Abtigiina aad ayuu Saxardiid u jeclaay. Hase yeeshee jacaylka abtigii waxaa xumeeyay haweeneyda oo qabo abtigiis. Haweeneydaas oo wiilka Saxardiid ula dhaqmi jirtay si aanay marnaba ammaan ku lahayn. Haweeneydu waxay ahayd mid aad u naxariis daran. Waxay ku hayn jirtay wiilka xumaan aan xad lahayn. Hadday la hadlayso dirir iyo kuleel ayay kula hadli jirtay. Hadduu wax yar gaf ah sameeyana dilmo raxmad la'aan ah ayayna waxba ula hari jirin. Hadii goorna waxay qaba dhihi jirtay shaqo oo aanu qaba karin. Waxaas oo dhib iyo dilmo iyo naxariis la'aan ah aad iyo aad ayuu Saxardiid u dareemi jiray oo ay calooshiisa u gubi jirtay. Hase yeeshee wuu u dulqaadan jiray. Marka cid kale oo dulmiga oo qabo ugu cawdo waayana wuxuu u tagi jiray gabadha abtigii oo uu waxa uurkiisa gubaya ugu sheekin jiray. Gabadha abtigiina waxay ahayd gabar yar oo naxariis badan, qalbi furan, dareen wanaagsan. Mar allaale markay Saxardiid isagoo u murugaysan iyo tiiraanyo naftiisa yara qaadi kar la'dahay oo ula yimaadana way ka baabi'in jirtay oo ay wehel suuban u noqon jirtay ilaa ay karkahaya ka qaboojiso oo ay naftiisa farxad iyo fududaan geliso. Inkastoo oo Saxardiid ahaa markaa wiil yar oo aan weli laftiisa adkaan, wax howl adagna uusan qaba karin, hase ahaatee xaaska abtigii ma tixgelintaa. Timir ayay kula talisay in uu Saxardiid shabaq u soo iibiyo oo uu ku kulluumaysto si oo isna geestiisa reerka ugu soo shaqeeyo. Saxardiid baa markii shabaqa loo soo iibiyey. Haddaba sidaan hore u soo sheegnay, inkastoo uu ahaa wiil da'diisa aad u yar tahay, wax aqoon ah oo uu kulluumaysiga u lahaa maysan jirin. Sinaba wuu u diidi kari waayey amarka ayadii. Shabaqii boona degdeg u ritay oo xaggii badda ayuu u kacay. Subaxii Saxardiid kulluumaysiga ugu horreysay waxay ahayd subax dhulka kulul yahay, dabaylina ayna jirin, badduna fadhido. Saxardiid baa baddii wax yar siduu u eegayay markaasoo jeclaystay deganaashihii biyaha iyo hirar la'aanta ahaa. Ileen waa inan yare intuu iska ilooway kulluumaysigii loo soo diray ayuunbaa wuxuu ku soo dhacay dabaal. Shabaqii iyo maryihiiba intuu badda dhinaceeda dhigtay ayuu biyihii galay. Dabaashuna aad ayuu u yaqiinay oo markiiba intuu quusay ayuu hore ugu fogaaday. Dabadeedna ilaa intuu ka dhargaayay biyaha ku ciyaarayay. Markuu biyaha ka soo baxay ayuu is yidhi, maryahaagii xiro. Waaba maryihii oo aan meeshiiba oolin. Talow yaabaas oo maryihii qaatay. Saxardiid bay talo ku caddaatay. Dhabannada intuu qabsaday ayuu isagoo la moodo in cirkii ku soo dhacay oo dhulkiina laga hoos iska fariistay badda agteeda. Cabaar markuu halkii fadhiyey isaga oo caraysan oo naclad korka ugu tuuray tuugaabaas ee maryihiisii ka xaday ayuu ugu dambayntii istaagay oo dabadeed intuu wax allaala wuxuu xirto waayey shabaqii kusoo kulluumaysa la yidhi isku duubay oo xaggii guriga u soo hadaafay. Markuu gurigii kor kaga soo baxay waa baase aayadii oo oridda sii taagan. Hadday aragto inaanu waxba kalluun sidin qaawan yahayna. Intaas waxay noogu dhammaaday qaybta koowaad ee sheekadii. La soco qaybta xigta iyo qaybaha dambe.